isha dhaqaalaha Puntland ee Boosaaso dagaalka maanta ayaa uu ahaa xasuus marka la eego xilliga iyo xaaladda taagan 20 sano muddo laga joogo ayaa dagaal siyaasadeed ku dhisan xukunka magaaladan uu ku dhexmaray Cabdulaahi Yuusuf oo ahaa madaxweyne muddadii ka dhamaatay ha yeeshee helay muddo kordhin iyo dhinacyo ka soo horjeeday muddo kordhintaas oo u badnaa xubno ka soo jeeda gobolka Bari dagaalkaas 2 maalmood ayuu qaatay dad badan ayaa qaba in dagaalkii Boosaaso looga saaray Cabdulaahi Yuusuf iyo soo noqoshadiisiiba ay ahayd bilowga kala daadsanaanta maamul ee hana qaaday waxaanayba furu noqday nidaamka kor ka dhisan ee dawladnimada iyo awoodda qarsoon ee lagu naanayso 3 saac qardho waa magaalada ay ka soo wada jeedaan labada nin ee hadda talada BSF ku loolamaya dhaqan ahaan ayay dhinacyadu isku qoonsadeen waxaana jira hurgumooyin ay saameyn ku leeyihiin kooxo kala duwan oo iyana saameyn ku leh talada u dambaysa ee madaxweyne Deni dagaalka maanta ayaa u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan kuwa difaaca ee Puntland qoraxda oo gabaabsi noqotay ayaa dagaal ka joojisay balse uma uusan istaagin waan iyo wada hadal ay dhinacyadu aqbaleen ay leeyihiin goobjoogayaasha ku sugan magaalada Boosaaso dhimashadu waa in ka badan 6 qof oo 4 ka mid ay yihiin askarta dagaalantay dhaawacu waa in ka badan 15 ruux oo isugu jira shacab iyo ciidan burbur hantiyeed ayaa soo gaaray qaybo ka mid ah magaalada labada dhinacba ma jidho cid samaysay horumar dagaal oo caawa ku hoyanaysa goob cusub sababtuna waa aagaga lagu dagaalamayo oo ah xaafadaha dhexdooda ama dagaal magaalo ciidanka ka amar qaadanaya agaasimihii hore ee BSF waxa ay ku jiraan difaacyo xaruntooda ah halka ciidanka dawladdu ay weerar ku yihiin sida ay u qaybsan lahaayeen xaruntan duhurnimadii maanta dhinaca ciidanka ku jira xarunta BSF waxa uu suura gashay inay aagaarka madaxtooyada iyo goobaha ku dhowdhow dib uga durjiyaan ciidamada daraawiishta iyo kuwa ay maamulaan imaaraadka carabta balse iyana ma aysan tegin goobahaas sababta waxaa lagu sheegay inaysan jirin amar ah inay meel uga baxaan saldhigyadooda xubno ka tirsan dawladda ayaa xaqiijinaya in ay maanta ciidamadu la kulmeen iska caabin xooggan oo dhinaca kale uga timid taas waxaa laga dhex akhriyay war la mariyay warbaahinta xukuumadda taageerta oo uu sii daayay duqa kumeel gaarka ee Boosaaso ahna wasiir ku-xigeen ka tirsan xukuumadda oo sheegay in ciidamada gorgor ee ay tababartay dawladda Turkiga ay ka dagaalameen Boosaaso dad badan ayaa ku maaleysay warka xukuumadda Puntland ee ah in gorgor ka yimid xamar ay ka qayb galeen dirirta Boosaaso sababtoo ah ma jiri karto nooc kasta oo ciidan oo ka madax bannaan Puntland oo ka yimid bannaanka dawladdu way ku guuldarraysatay isku daygeeda ku wajahan inay indhaha bulshada ka jeediso xaalka fagaaraha siyaasiyiin hore xilal uga soo qabtay Puntland iyo ganacsato ayaa galabta bilaabay dadaal xoog leh oo ay ku hakinayaan guluf kale oo dagaal kana dhaca magaalada balse dhinaca madaxtooyada Puntland ayaa ku gacan saydhay sida ay xaqiijinayaan ilo wargal ah iyadoo dooda ugu xooggan ee adeegsatay ay tahay in Boosaaso aysan wada joogi karin laba ciidan oo isku awood ah kana amar qaadan madaxweyne Deni ha yeeshee dadaalkaas weli si gaabisa ayuu ku socdaa wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo saraakiisha ciidan ee howlgalka loo xilsaaray ayaa maanta wejigabax kala kulmay maaraynta dagaalka sababta ugu weyn ayaa ahayd in qorshuhu ahaaba inuu qaato howlgalkan 4 saacadood oo dagaal ah in xerada laga qabsado garabka ina diyaanana ay ahayd mid fudud sida dawladdu qorsheynaysay balse taasi ma dhicin dagaalkuna waxa uu ku istaagay meeshii uu ka bilowday subaxnimadii barqada ee maanta labada dhinacba masaafada dagaal ee lagu dagaalamayo ugu badnaan waa 2 kiiloomitir oo ah gudaha xaafad ka mid ah Boosaaso ma jirto awood sharci oo Deni kula loolamaysa xukunka balse dagaalka labada dhinac ee ciidamada ka wada tirsan Puntland ayaa su'aal gelin doona sharciyadiisa haddii uu sii daba dheeraado waxaa la isugu imaan doonaa miiska wada hadalka iyada oo labada dhinacba dhiig bixeen dhaqaale ahaan burbureen tacsiyada iyo tiiraanyaduna ay siyaaday Boosaaso waxa ay dhacdaa dhul sida gacanka oo kale ah waxa ku xayndaaban buuro juqraafi ahaan ma sahlana in gudaheeda dagaal si fudud la isugu awood sheegto waana halka ay dad badan qabaan in nidaamka hadda jira iyo BSF aysan 10 ka baran 20 sano ka hor wixii ka dhacay magaaladan dad badan ayaa ka barakacay guryahooda kuwaasoo caawa ku hoyanaya goobo aan ahayn xaafadahooda ma garanayaan xilliga ay dib ugu laaban doonaan hoygoodii
haddii dagaal dhamba dhacana rajada ay qabaan ee ku laabashadu waa mid sii gabaabsi noqonaysa bulshadu waxa ay kaloo qabaan walaaca in dagaal dambe oo hadda iyo kadib ka dhaca Boosaaso uu sababi doono mahadhooyin magaalada iyo sumcaddeeda saamayn doona gaar ahaanna marka laga hadlayo soo kabashada dhaqaale oo aan sahal noqon doonin ugu dambayn siyaasad ahaan dhaawac weyn ayuu gaarsiinayaa dagaalkan madaxweyne Deni oo dhawaanaha ku naaloonayay hadalhaynta la xiriirtay isarrixid ku wajahan heer federaal balse dagaalka ayaa ka dhigaya rajada mid soo gaabanaysa ma jeceshahay inaad barato qur'aanka kariimka ah iyo culumta shariicada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur'aanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda